leeyahay diyaaradaha maxay Turkiga goormaan culuub oo Soomaali ciidanku u tababaraya ay noqdeen kuwa dadka lagu leeyahay ama harab cadde ama shabeelde ama bahal kale ugu yeer waxa la leeyahay ciidankii Turkigu soo tababaray ee loogu tala galay shabaab inay la dagaalamaan yaa waxay noqdeen kuwa maanta beled xaawiya doolo u yeentay la keenay shacabka lagu gumaaday waxaan oran lahaa dawladda Soomaaliya wax lagu aamini karaa maanta ma jirtee war ilmaada reeyaalo hawadiina bad cid kale oo noo haysa loo dhiib ciidamadan la soo tababarayana qadarayna lacagtaad bixinaysa naga daay dhibaatada wadanka ku ah Turkiyana waxa tababaraysa joojiye shacabka Soomaaliyeed taariikh bay u gali doontaa anu intaasi waxaan leeyahay waa shay meel looga wareega aan lahayn waa shay meel looga wareega aan lahayn shacabkii maanta in ciidankii shabaab loogu tala galay intii lagu laayo oo Elsaliini iyo laga soo qaado Qoryoole iyo diyaarad lagu soo daldalo marna in la yiraahdo Macallin Maxamuud baan rixligiisii baan wataa iyo waxaan tusbixiisii waa kan iyo kana yeelay marna la yiraahdo Cabdijana ilmihiisu dharkan xidhan jireen waa ballanqaysanayna Turki baa lagu soo baray hay'adda nabad sugidda ya halka maray hay'adda nabad sugid miyaa jirta maya source-kii wararka ay ka heli jireen hay'adoo dhan qof kastoo shabaab col ah bannaankay soo dhigeen waxay diidan yihiin shabaab wax laga sheego dhanba diyaar uma hay'adda niisa waxay gashay gacan jarmal ma qaybna naazigi waa gacanta ku dhigay Hitler bay u tagtay way ka tagtay dawladnimo Soomaaliya dan Soomaaliyeed inay idin ka shaqeyso halkaasay maanta marayso waxaan leenahay war cid kasta oo faragelin ku watay Turkiga waxaan leenahay ciidankaaga aad tababarayso jooji dawladda wax lagu aaminaa ma joogin qadar waxaan leenahay shilimadaada jooji Ethiopia waxaan leenahay saraakiishaada dhaqanka xun ee socota jooji war qof waliba ha naga daayo waxa la lagu hayo shacabka lagu qof waliba ha qaata eeda uu ku leeyahay meesha waxa ka jira waxaan leenahay reer Jubbaland dagaalkii shabaabka waa laba laabayna waa wadayn dawladda federaalka waxaan leenahay dawlad federaal war maxaa Abdullaahi Farmaajo madaxweynihii baa tahay kaale aan wada hadal miisa wada fadhiisano dastuurku wuxuu ku siiya qaado wuxuuna siiyana aan qaadan haddii intaa la waayo cidina kala xukuntaan raadinayn haddii la waayo dadku siyaalo kale u tashan doonaan haddii la ama dibad ha joogeen ama gubad ha joogeen waxaan rabaa inaan ugu baaqo dhammaan hay'adaha samafalka iyo dawladaha saaxiibkan ay kulligood ha loo gurmado dadkaas daawo dhibaatada ku haysa ee la barakiciyey ee dawladdoodii ay barakicinaysa ha loo gurmado